BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Watahay. Bal haatan Kenya. xisbiga hay'adda talada dalka Kenya ee jubilee ayaa dadka gorfeeya siyaasadda Kenya sheegan in khilaaf ka dhex taagnaa shaaca uu soo baxay kaas oo xubnaha xisbigu sida la sheegayo ay la kala safteen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo aad u kala aragti duwan. xisbiga ayaa xubno ka tirsanaa guddi hoosaadyada baarlamaanka oo loo arkayay inuu janjeeraan dhanka madaxweyne xigeenka xilalkii ka qaaday waxaanu magacaabay kuwa cusub. xubnaha xilalka dhawaan loo magacaabay waxaa ka mid ah Xildibaan Adan Keynan oo laga soo doorto deegaanka Ceeldaas ee gobolka Waqooyi Bari oo loo magacaabay Joint Parliamentary Secretary Kawsar Maxamed Cabdilaahi ayuu uga waramay ujeedada isbedelka xisbigu sameeyay. xisbiga jubilee horta waa xisbi weyn oo wadanka Kenya hadda xukumo marka waxa dhacay isbedel lama dhihi karo waayo waqti kasta xisbiga wuxuu leeyahay maamul wada shaqeyn iyo waxyaalo horumarin ah oo waqti kasta marka muddo la joogo laga hadla marka waxa dhacay hadda waxa waaya Ingiriiska waxa lagu dhahay reorganization yani waxa weeyaan sidii shaqada lagu fulin lahay ballanqaadiyada doorashada marka ay dhacday kadib dadweynaha loo sheegay lagu fulin lahay dadweynaha looga diyaarin lahay maamul hadda jiro inuu diyaar u yahay ballamihii ay wadanka ku qaadeen inay ka soo bixayaan ayna ku targelsiin muddada yar oo hadda madaxweynaha u hertay waqtigiisa inay diyaar u yihiin inay fuliyaan ballamihii arrin kale jirta oo aad la isla dhexmarayay oo ah in hindisaha BBI la doonayo in aqalka baarlamaanka la meelmariyo taasna ay u baahan tahay dad madaxweynaha la fikir ah maxaa ka jira sida faahfaahinta wadanka waa wadan siyaasi ah maamulka hadda ka jira ama dastuurka siyaasadeed oo ka jira waxa la dhahaa wuxuu ku dhisan yahay يعني waxa la dhahaa presidential system wadankaana sidaas ogsoonta dastuur buu leeyahay dastuurkan muddo kala duwan ba isbedel lagu hagaajiyay marka isbedelka waaya maadaama waxaan dastuurka ka jira dastuur dad qoro uu yahay waqti kasta waxa soo bixi kara wax ama sidii la rabay aan maamulka aan lagu isticmaali karin ama waxyaalo markii waqti kasta fikradii inay isbedel adduunyada waxa ka dhacda fikradii isbedeli marka tan hadda socoto BBI-da waxa weeyaan fikrad oo uu soo keentay odaygii mucaaradka weynaay iyo madaxweynaha Uhuru Kenyatta marka taana waxay raadinaysay si lagu daba jaro isdafitaankii ama dhibaatooyinka dhici jiray waqti kasta marka ay doorashada dhamaatay marka ilaa hadda waan sugahaynaa draftiga hore waan aragnay waxa ka soo baxay wax wadanka uu keeni karo ama qabiilaha kala duwan oo wadanka marka tan cusubna hadda ilaa hadda wax rasmi oo soo baxay malaha waxa la sheegay in arintan lagu bartilmaameedsanayo madaxweyne ku-xigeenka oo maalmahan ugu dambeeyay ba madmada uu kala dhex jiray isaga iyo madaxweynaha marka waxa la sheegayaa in ujeedada ugu weyn ay tahay in laga hor istaago xilka madaxweynimada laakiin ma jirto taa been waay waxay been u tahay doorashada waxa codeynta waxa hagaajiyay dadka Kenyaanka nin kastaba xur buu u yahay waqtiga u dambeeya doorashada ay dhacdo ama doorashada ay dhacdo inuu ninka doono uu codeeyo wadanka saas ogsoonta waxa ka jira xisbiyaal yani waxa la dhahaa Ingiriiska multi party democracy marka lama qasbi kara taa been weeyaan waa dad oo fululiyaal ah oo wax kastaba ku raadinaya yani si dadweynaha ay ku kaciyaan ma jirto taa marka wadanka maadaama wadan democracy uu yahay doorashada ay dhici doonto nin kastaba xurriyad buu lahaan doonaa waqtiga doorashada marka la gaaro ninku doono inuu codeeyo marka taa ma jirto been waa ninka fikirina malaha Keynan markaynu eegno Soomaalida aqalka baarlamaanka markii hore waxa ay ka haysay xil weyn sida kan aqlabiyada baarlamaanka hadda tan xogayaha xisbiga oo adigaad hayso soo uma muuqato mid hoos u dhac ku ah masraxa siyaasadda ee Soomaalida siiba gobolka Waqooyi Bari dadka badi ma fahansana dastuurka ka jira wadanka ka jira maamulka hore oo jiri waa maamul ku dhisnaay ama laga soo ama hadii maamulka hore oo ka jiri Ingiriiska kadib sanadka markuu ahaay 2010 dastuur cusub iyo wadanka hagaajiyo dastuurkaasna wuxuu ku dhisan yahay dastuurka Mareykanka marka dastuurka Mareykanka waxa jira yani Ingiriiska waxa lagu dhahaa pure presidential system ka macna waxa jira jogoodin fara badan baarlamaanka dhinac u ah ama madaxtooyada dhinac u ah yani executive ka dhinac u ah marka tan position ka hadda kii hore oo ka jiri oo ninka walaalkeena uu hayay wuxuu kamid ahay waa maamulka baarlamaanka yani labada baarlamaanba ma waa baarlamaanka oo la dhahaa aqalka hoose yani aqalka hoose waa National Assembly jagada hadda aanay haay waa mid uu keena ah labada guri waxa laga doonayay sanadka 2013 doorashada markay dhacday in la hagaajiyo oo uu shaqo bilaabo sababaha hadda aan ku sheegi karin interviewan yaa keenay inaan xafiiskaas uu shaqo tagin hadda xafiisku uu shaqeynaa waxaana ku sheegayaa si kastaba uu noqon doono xafiiska baarlamaanka ugu sareeya shaqo weyn uu qaban doono oo waana arki doontiin markuu shaqo bilaabo isla dastuurkan aad ka hadashay isbedelkiisa maxay uga dhigan tahay Soomaalida ku nool gobolka Waqooyi Bari Kenya
soomaalida waxay kamid tahay dadka wadamo badan bay degan tahay laakiin soomaalida wadankan ku nool waxay kamid yihiin qabiilaha wadanka kamid ah sidaan filayana dastuurka marka la qoraayo qabiil looma qoro amaba degmo looma qoro waa dastuur wadanka dhan uu keenaya marka maadaama dadka lasoo doortay aan ahnay wax dadka anaka wax ka dhimaaya ama degmadin degmeen wax ka goynaya mana ogolaanin haddaan ka horan haddana ma ogolaanayna mana ogolaan doono marka taa wax kastaba waan fiirinayna waxaan leenahay maxaa wadanka dan ugu jiro meelihii nagala soo doortay maxaa dan ugu jiro qabiilihii maxaa dan ugu jiro Kenya ma isu keeni kartaa marka taana waxaan filayaa maadaama wadankan wadan xurriyad u yahay wixii wax Soomaalida amaba qabiilaha kale wadanka degan dib u keenay inay la keeni doono ilaa maaha Xildhibaan Adan Keynan ayuu kaasi ahaa warramay Kowsar Maxamed Cabdilaahi